saad ka warqabtaba waxaad og tahay dalka Jabuuti inuu yahay dal aan walaalanahay xiriir qoto dheer aan leenahay wada dhalasho leenahay dhiig na aan wadaagno marka saad ka warqabtaba Sitimaanka maalmihii la soo dhaafo weetii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu yimiday booqasho rasmi ah uu ku yimiday oo 24 saacadooda dalka Jabuuti waxaadna og tahay inuu la kulmay dhigiisa mudane Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti saad ka warqabtaba adiga shirar muhiim ah ay qaateen oo qoto dheer oo xaaladda geeska Afrika iyo ka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka iska wareysteen marka arrimahaasi oo daba socda shirkan oo wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Faqi oo halkan u yimiday gogol xaarkii shirkaas amba hawshii ka soo baxda mirihii ka soo baxay ayuu isaguna dhameystirayay maantana waxaa si rasmi ah ay u kala saxiixdeen labada dowladood bilateral warqad ah oo ay kala saxiixdeen wasiirka cadaaladda Bahdoon iyo wasiir Fiqi ciidamadii loo qoondeeyay Soomaaliya inay nabadgelyada xasilinta iyo nabadgelyada ay Soomaaliya ku soo dabaalaan maadaama la galay haddana wejigii saddexaad oo weji cusub oo uusan la yiraahdo ay mataqaanaa Soomaaliya loogu deeqay inay bilowdana ay ahaaday howlahaas inay dalka tagaan ayaa mataqaanaa hawshaas ayaa loo yimiday waana loo isku afgartay